asxaabta ku xiran waa beri media ku soo dhawaada sheekadii cusbeed ee libin jacayl qaybteedii 18aad falis macmacaanka samayntooda ayay aad ugu wanaagsanayd waxayna diyaarisay wax kasta oo ay islahayd habeenkaas miiska waa uu bili karaa xilli hore ayaa ayna ku diyaarisay qolka fadhiga Yasmin oo markii ay ogaatay in gudaha guriga uu caawa u soo gudbay Yaasiin ayay falis ku tiri Yasmin kaalay falis ma inuu gudaha soo gala ayaad rabtaa falis maxaan ka cabsanaahe caawa dumaashigaaga ayaan cabsi la'aan ku barayaa Yasmin aniga waan ka yaabanahay ka waran hadii iyada oo la filaynin ay aaba iyo qadar nagu yimaadaan falis taas ha ka cabsan habeen kale ayaa xataa laga yaabaa in ay maqnaadaan ee naga daa cabsida Yasmin aniga hadii uu fashil dhaco ogow in aan dambi ku lahayn oo wax walba cadeynayo falis maxaad adiga cadeysaa aniga badhihi doona Yasmin arintan wax kale ma socon haye iska daa cabsida ee orod oo soo diyaari waa uu soo baxay hadda ayaa uu soo wacay Yasmin iyada oo luudaysa ayay qolkeeda isaga laabatay oo isdiyaarin iska gashay xaflad aysan raali ahayn meesha ay u socotaan aanan garan ayay isu diyaarinaysaa iyadoo cabsi u dheer tahay waxaase wax walba kaga cabsi badnaa markii ay aragtay mursal oo ay soo hor socoto falis oo qolka fadhiga sii gelinayso inta ay ka daba gashay ayay mursal gacanta qabatay waxayna banaanka ugu soo wacday falis oo ay ku tiri Yasmin haya maxaa jira mursalna maxaad u keentay falis sidee xafladda ayaa uu nagala qayb galayaa Yasmin wallahi waad ka sii badbadinaysaa kaali adiga cabsi ma taqaanid falis fiiri dumaashigay ayaan dumaashiga baraya maxaa ka qaldan mursal hadda ayaa uu shaqo ka socdaa aniga ayaa soo qabtay waana waqti yar naga daa cabsida Yasmin in ay oyso ayaa wax yar kaga harsanaa balse maxay sameyn kartaa mursal ayay qolka ugu gashay oo ay ku tiri Yasmin haya ii waran xaaladda mursal wallahi waa ku fiicanahay caawa waa markii ugu horeysay ee aan gurigiina soo galay Yasmin falis ayaa ku soo qasabtay waxaana filayaa in aad daalan tahay mursal dhib ma lahan qof igu qaali ah ayaan ku baraya ayaa igu tiri farxadda ha ka jirin ayaan is iri oo aan ku soo raacay Yaasiin ayay caawana baraysaa malaha waa iyada oo kale mid waalan inta uusan hadlin mursal ayaa mar kaliya ay soo galeen falis oo uu la socday Yaasiin waxayna ugu horeyn u geysay mursal oo ay ku tiri falis iska baro wiilkan waa mursal waa saaxiib igu weyn Yaasiin ma sha Allah barasho wanaagsan mursal magacaaga ayaan haynay waa inoo farxad in aan caawa ku barano falis haye macaan qoftan waa fahmi karta waa naftayda barkeed Yasmin walaashay marna saaxiibtay Yaasiin ma sha Allah Yasmin ii waran waa ii sharaf in aan ku barto amaantaada afka falis kama dhamaado Yasmin malaha waa ka sii badbadisay sida dhan uma wanaagsani Yaasiin wanaaga lagugu sheegay indhahaaga ayaan ka arkaa Yasmin mahadsanid walaal soo dhawow fadhiiso falis waa sidaas macaana ii fadhiiso sheeko yar ayaa la galay ka hor inta aysan falis macmacaankii ay maanta oo dhan samayntiisa ku mashquulsaneed aysan cid kasta waxaan ugu soo diyaarin halkii cabid iyo cunis lagu galay cunistii kadib ayaa uu mursal ka cudur daartay oo uu yiri mursal falis caawa sharaf ayaa ii ahayd in aan halkan igu casuuntan waanse ka cudur daaranaya oo waad ogtahay sida aad shaqada kaga imid inaan ahay falis ma sha Allah waad ku mahadsantahay sida aad ii sharaftay waana ku faraxsanahay macaan soo sida maaha Yaasiin waa sidaas barasho wanaagsan mar kale mursal insha Allah kulankeena intaan waa ka badan doonaa mursal markiiba waa uu baxay waxaana hore u sii sagootisay oo ilaa iyo irida geesay Yasmin kadibna aan ku noqono qolkii ay fadhiyeen falis iyo Yaasiin oo banaanka ayay iska fadhiisatay habeenkaas hadii la xisaabi lahaa wadnaheeda dhaqdhaqaaqa uu sameeynay hubaal ayay ahayd in sidii caadiga uu dhaafay oo garaaci xoogan uu sameeyay qaar hablaha xaafada ah ayaa la soo fadhiistay intaas sheekada la haya iyada marnaba lama socon oo waxay indhaha ku haysay ilinka guriga oo ay markasta fiirinaysa in ay soo baxeen waxayna qalbiga ka oranaysaa may soo baxaan falis oo aan cabsi oo dhan aan qabin ayaa sheeko iyo qosol ku jirta oo haddaba macmacaan inta ay soo qabato ay
ayay yaasiin afka u gelinaysay. yaasmiin waxay cabsi ku jirtaba oo mar kasta damacda in ay u tagto oo ay ku tiraahdo naawiilka soo bixi yaanaan dhib geline ayaa ilaahay qadariyay in ay soo baxaan. tani ayay yaasmiin u ahayd farxad. falis hore ayay usii kaxaysay oo markiiba ka soo laabatay oo sidii gurigooda ku galeen. asxaabta waa Beril Media la socda qaybta dambe jimcada dambe hadduu eebbe idmo.